maxaynu ugu dabaaldegaynaa 18 May marka halkudhiga sanadkani waxa weeyaan aqoonsi iyo adkaysi maanta waa maalin muwaadin kasta ku weyn waa xuska dharaartii hogaankii SNM waxgaradka iyo guurtida beelaha Soomaaliland ay burca ku guddoonsadeen in wixii shalay dhacay xalay dhalay laga noqdo in dhinacyadii la kala jiray laga yimaado oo lagu mudoobo bog cusub oo ah walaalnimo nabad wada jir iyo qarannimo la wada leeyahay maalinta qaranku waa maalin ay dabaaldegyo ku xusaan dawladaha ama qaramadu ama bulshooyinku waxayna inta badan noqon kartaa taariikhda madax bannaanida taariikhdii aynu soo dhaafnay badankeeda aadanuhu waxay u dabaaldegi jireen si ay u xusaan waqtiyo muhiim u ah una muujin lahaayeen farxad wada jira una xoojiyaan xiriirka bulshada dabaaldegyadani waxay inta badan ku lug leeyihiin waayo aragnimo la soo maray oo la wadaago oo isku xidha bulshada ama bulshooyinka qarankaasi leeyahay dal waliba waxa uu leeyahay sumcad iyo sawrac lagu yaqaan taasoo lagu xasuusto sida ay xorriyaddu baal dahaba ugaga jirto noloshooda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka mid tahay dalalka taariikhda dawladnimadooda xusa sanad kasta waxaa dalkeena looga dabaaldegaa 18 May oo nolosheena iyo taariikhda dalkeena baal dahaba kaga jirta iyadoo ay tahay maalintii lagu dhawaaqay la soo noqoshadii dawladnimada xilligaa wixii ka dambeeyay waxa 18 May loo aqoonsaday sumcadda iyo baadisooca lagu garto halganadii dhaadheeraa ee naf iyo maalba loo huray ee bilowgii iyo dhammaadkii qarnigii 20aad ay reer Soomaaliland u soo mareen dawladnimada aynu maanta haysano soo maray xilligan waxaynu maalmo kooban inaga xiga xuska 35 guurada maalintii aynu dib ula soo laabanay dawladnimadeennii waxaana guud ahaan dalkeena ka socda diyaargarowga sanad guuradan taasoo u socoto si ballaaran kana marakacaysa isku duubnida dadkeena iyadoo haddaba muwaadiniinta Soomaaliland u tooghayaan xuska barakaysan ee qarankeena weyn oo aynu idanka Ilaahay harkiisa ka helo magangelyo habeen iyo maalinba ayaa dabaaldegan waxa sidoo kale aynu ku xuseynaa sidii loola soo laabtay madax bannaanadeedii inaga lutay loona mideeyay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo lagu saleynayo mas'uuliyadda bulsho iyo aaminsanaantooda ah in qoysku yahay qarankuna yahay qoys waana tallaabo aynu ku hirgelinayno sidii aynu xoojin lahayn lahaanshaha qaranka iyadoo loo marayo dadaalkeena si casri ah oo wax ku oola habkani wuxuu kobciyaa ruuxa hindisaha iskaa wuxuu qabso waxaana uu sii adkeynayaa asaaskii lagu dhisay qaranka Soomaaliland waxayna noqotay qiyamka sharafta leh ee inagu hagaya guusha iyo jacaylka dalkeena dabaaldegeena waxaa kale oo looga dan leeyahay sidii loo sii xoojin lahaa aragtida dadku aaminsan yihiin ee taageeraysa isku xidhnaanta dadweynaha iyo sidii qulubta carruurta loogu ridi lahaa jacaylka dalkooda dabaaldega 18 May waxay dhiirigelin u tahay dhalinyarada qaranka si ay kor ugu qaadaan himilooyinkooda una tartamaan xaqiijinta guulaha waaweyn ee lagu gaarayo aqoonsiga buuxa ee Soomaaliland ku sii dhawaanayso sidoo kale xuskan qaran waxa uu muhiim u yahay sida ay dhalinyarada Soomaaliland u lahaan lahaayeen karti iyo go'aan qaadasho hamid dheer xambaarsan oo leh xamaasad iyo dhaqaaq sax taasoo ka dhigaysa dhalinyarada kuwa qaranku ku faani karo waana munaasabad weyn oo muujinaysa hanka qaranka iyo wada jirkiisa ka qaybgalka ururada bulshada iyo iskaashatooyinku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan dabaaldegyada maalinta qaranka 18 May